waxaa habeennimadii xalay toole ka dhacday hoteelka caalamiga Oslo Hotel xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka qayb qaateen akaademiyada horumarinta qoyska ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan wadajir ayaa habeennimadii xalay toole kulankan heerka sare oo ay ku marti qaadeen dad aad fara badan oo ay ka mid yihiin baryaal sare oo macallimiina iyo waliba hooyooyin iyo waliba madaxda ugu sareysa ururka wadajir waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka akaademiyada horumarinta qoyska ee wadajir Sheikh Ibrahim Xamud Umar iyo waliba afayeenka ururkaasi Fahmi Abdilaahi oo ku nuuxnuuxsaday taariikhdii ay soo martay ururkani iyo waliba waxyaabaha uu qabto iyagoo hadlayana hadaladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan haweenkan cawaa haweenaadu farxad badan وحوين نوديا هلنا ذكره وحنقول جونا دمانتين أمني مجا ورجل وتنحق لتا محيك شبايسا إن بدن ولا سوق بدلين إن بدن ولا بصورة حملين أنا حملنا الله مهرم محاحر الله الله وحنقول جونا هذا الله ونقطع من دونا وقت منوي إليا إن الله كان يسوع قد يسوع ما كان يسوع الحمد لله أكاديمية حركة حيرتين نحن بسون كإسكالات جيسين هو ينسى نفعل لهين هو متشا مشهد متشا هو جرام عيسى حق إلى حقوقنا وإلمه لكل يحيي. waxaan leeyahay anagu waxaan nahay طبعا هذا كيسان وركيسة أو يحيي رمسي وحويا ودشير يعني ما كديمية فرامرين تبويسك ما قال لي ودشير معناها ودشير رمسي كذا ويل الفرقان أو إنت راح أصله وين يعني قروح بدن طبعا أو كل هوتيل إسكافة ده والله قبل داوي صوح إن يسنى ساعة ساعتين واحد مرة لسه سامر كبرين سيوفر دلو مالين تروح دل سيوفر دلو كعيسى عمرك مخمك علامه بريه كعيسى تي في غير داون عيسى تي في سيو داون عيسى بعدنا عشان سادي دو الساحة عيسى وديجي وديجي أو كبقايو كامر كعيسى حتى أي مدى وقلت لك that's why أهميته هو يعني كنا كنصاري كلمتها وعنانتها وودرتها وعيدا وأبلغانيسة that's why وقلت يدنا مكان time كعيد لها الله سنتهاي القف كان يهودوك صوبيريا سي أنا الأم قلت محيي بيروي جودا وشقة يسوون فرطو دينا يسوي استماعهم waxaa halkaas iyaguna ka hadlay dadkii lagu marti qaaday ujeedada hadafkani iyagoo halkaasi ku lafa guray in faa'iidada ay leedahay in qoys la dhiso dadkii qaaday midkii in heerada geedba lagu hooseeya arrinta mid ka mid ah ee qorshaankeena waa loo weero lagu wuri oo xabaashi inta uu biyaha ka soo dhashay حواشي وبياك صدري تبع الشيخ والمغير ومنه قابل بوري حواشي يكون شركية رايدوني وصلت الشيخ أوجاده إنه كلمة التوحيد كلا إله إلا محمد رسول الله وكأيه إرئاء الناس إن قد كلا سكوت السلم البري إنه إخلاصي كيد البري الشيخ وابع بعد ميتي مسوق هذي إلكي وكل سودري إلكي واحد كتشرا إلمه يراين غلا بيجي بكسر حواش وسط كنيجرا قرشي سوى فعلي وياتي خشفه ما أبا مركو المية راس خوق علي أيوب يلك الجبيري يا حواش بجرى كيانا ولا إيه إسلام مركلا تؤذني كسوب بودي كيانا مركز يقول مرة بك أنت والله يا صوقتي ويقول مرة بك مرة بك محو جرى أنت ربي أدقى إلهي أدقى إلهي waayo waxaan ka wadaa waxaad qabanaysa iyo aragtidaad qabanayso inuu khilaas kara dhammaan waalidiinta ardayda iyo dhammaan macallimiinta iyo waxa uu tababarayaasha halkan isugu yimid aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan idinku salaamayaa dhammaantiina salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalaad runtii wax badan oo waxa weeye markaasi
arrimaha ku saabsan programkan waa laga hadlay waxaana aad uga hadlay dhalintii ugu horreysay martahay sidee baad u tababar qaadan lahayd waad u noqon lahayd si aad u soo jiidato sawirkaaga waa laga samaystaa qofka maxaa keenay imiga waxay leeyihiin raggii 4 ayaa la noo baneeyey 4 tiinad adigu bixisa lagaa rabaa 4 tiinad noqotid waxaa kaloo loogaga baahan yahay inaad adigu heblaayada kami soo guursan lahaadu ma tabin markaa maxaa wiilka ku kalifaya waa markaad adigu noqotid qofkii qof fogeeyade markaad albaabka ka furto ee waa xigee negative ka tiraahdo ana wareerina habibi wiilku leeyahay xabadi fadishay ayaa kaaga barantaas waa xaqa keliya ka saara misaal xasanaadkan allah idigu daro ururkan runtii waxa ay qanciyaba magaciisa wadajir wax sahlan maaha waa arrin culus weyn wadajir kelmad qiimo badan bay soo qaateen ururka waxaan leeyahay allah idinka jisaaisiiyo miisaalka xasanaadkan allah idigu daro uu rumood ka yahay macalin fahmi mid baan ka codsanaya macalin fahmi iyo asxaabtiisuba wada dhalinyar waxaa le arrinkan arrin culus weeye waxaan idinka codsanayaa inaguna inaad reereysaan ood aragtaan mas-uuliyadda si aad ummadda ugu noqotaan role model si aad ugu noqotaan qudwa xasana si aad u noqotaan inaad practicalkeygina la timaadaan hadda tiyadi baad haysaan haddaan u baahan yahay carruurtu waxay u baahan yihiin hooyadii waxay u baahan tahay waa inuu odaygii maanta mas-uuliyaddaas oo dhan qaada islaanna bay tiri dee odayganaaba isku leh dee maanta maxaad been taagana maanta anigoo hooyaa lahay uma haysta dowladeedu inuu leeyahay ayadee shalay baad barataan le ama intaan le ya waxaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa aniga magacaygu waa Amaan Ibrahim Xuseen waxaan ka tirsanahay ururkan wadajir aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inay dad inta la gacan waxay dadka nooga soo qayb galaan anagu markii aan aas-aasayno ururkan waxaan aragnay waxyaabo badan oo bulshadeenu aanay ogeyn sidaa darteed baan u aasaasanay qof kasta oo caawa halkan noloshan joogana qof kasta wuxuu wada arkaysaa magaca wadajir akaademiyada qof kasta oo ka soo qayb galaya ama nala abaabulaya waan kusoo dhaweynayna maamo fadxiyana waxay tiri anagu waxaanu nahay kuletole dadka mustaqbalkan ku daba jira sida insha allah waxaan rajeynaya anigu waxaan ugu soo biiray ururkan ama uga shaqaynaya inta ka sokow ka harsan noloshayda sidaan u heli lahaa soo wanaagsan manaha markaa ereyga wadajir aniguna koobanka aan ugu leeyahay in garab istaagnaada si aan wadajir wax ugu qabano manaha kulley programkan waa program aad iyo aad looga baahnaa ka Soomaali ahaan manaha iyo ka islaam ahaanba waa program aad iyo aad qaali noogu ah aadna wax loo baahnaa ah wax daafura ama wax tallaabada qaada oo la dabar raacana loogu baahnaa weeyaan marka la leeyahay kulley family qoys isku soo wada duubo akaademiyada horumarinta qoyska ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan wadajir ayaa jawigeedu wuxuu ku soo dhamaaday jawi farxadeed waa Cabdi Wali Nadaara shabakada caalamiga ee Gobol Casar News magaalada Boorama.